inanka yare sagaal jirka dhowl cadaysigiisa hadduu aabihii oo kamarada sawirka ka qaadaya ogaan lahaa inay isku bedeli doonto Black Friday muusan soo kaxaysan lahaynba. Black Friday-dana maaha taa adduunka laga yaqaanay farxadda iyo adeeg iyo habta la siinayo ee waa tii Soomaaliya. Hase yeeshee markay salaadii tukadeen inankii aabihii way iswaayeen, inankii oo naxsan oo dadka ciriirigooda ka soo saari lahaa aabihii ayuu unbaa nin hoosta ka soo galo ku dhahay adeer miyaad lunsan tahayna haa buu dhahay aabahay baan diidaya gacantuu qabtay kaale anaa ku kaxaynaya kuu geenaya meeshuu aabaha joogay inamari buu ku dhahayba. Odaygii baa arkay inankiisii meel fadhiyo ooyaya hab buu siiyo uu ku dhagay laakiinse inankuma ba hadli karo waa gariiraya naqaska ku dhagaya ilmana waa ka imaanaysaa aaba maxaa ku dhacay aaba maxaa jirana maba hadlaayaba dadkii baa hoosta ka soo galo dhahay inanka maxaa ka siya ayuu baa qeylaya rasaas lagu soo baraarugiyo naag eryanaysa nin oo oranaysa ninka hadlaya xidho hala qabto marka saa loo eegasho waa ninkii kaxaysanayayba waa maxay sheekadan xagee ku socotaana haddii aad sheekada ka dhacsan tahay haddaba gabadhaasaan noo waramaysaa oo markhaati ah meeshana waa qardho stationkii qardho ugu dhex waramaysaa odaygii inanka dhalay iyo chief booliiskii waxay dhahaysaa salaadii jimco markii laga kala baxayay odaygan iyo inankiisii baa kala ambaday nin dhalinyaro ayaa meesha soo dhex istaagay oo ku dhahay inankii yaraa aabbaha miyaad kala ambateen haa buu dhahay intuu gacanta qabtay ayuu ku dhahay anaa kuu geenaya luuq buu la galay wuuna kufsaday kufsigaa ka bacdina isagoo baxsanaya iyaanoo soo daba ordayaan arkay inankii inuu sas iyo kufsi loo geystay ayaan daba orday ilaahay markiina askar ayaa meesha joogtay oo ku dhahay ii xidha sidaasaan hadda station ku joognaa dacwadaasna waan qabnaa markhaatina anaa noqonaya odaygan saan hore nagu sheegay meesha waa Black Friday xaggee dadkii dacwada qabay la weydiiyey kaliya hal su'aal qolomaa tihidiina ma dhibaan baan nahnay gala jeelka la yiri odaygii naagta markhaatida furaysay inankii oo dhan baa la isla xidhiba lagu yiri ma ininkoo ma dhibaana ayaa maanta soo istaagaysiin oo oranaysiin nin kale laandheera ayaa in kufsado rabtiin inaan noo xidhin maciyaal suuqiin baa tidin mise dil baa rabtiin mise waxa rabtiin inaan 10 sano inagu xidhno jeelkaas meeshan cadaaladda kaliya ka jirto waxa weeye sida loo kala sarsareeyo laangaab iyo meesha liinta ku cabba wuxuugaa ka bacdi waxaa soo galay police stationkii inankii wax kufsaday iyo oday dhaqameedkoodii oo dollarka haya oo ku oranaya chief booliiskii qaadkaaga iska cun lacagtana hoo dhibaatadan iyo buuqan ku soo gaaray maantana xaal ka qaado inaan laandheera ayaa meesha joogo waxaan maqlay inay laangaabyadii dacwo beena ku raadsanayaan cadaalad xageen ka helnaa Soomaaliya haddii rabtiin inaad dulmigan iska joojisiin oo janno gashiin degdeg wax uga qabto ka hadla arrinkan haddii aad leedihiin munaafiqiin baan nahno dulmiga ku jiraay oo aakhirada adduunba saas ku baabinayana ku socda